runtii shabaab seen ula diriraynaa shabaab saddex meelood ay ka diriraan saddex group waay group waa ciidan dagaalama waa inaan kula dirirnaa group waa qaybta ideologies-ka isticmaalsan u qaabilsan ee u fatwooda ee diinta uga dhiga ee beenta u akhriya waay kuwaasna waa inaan diinta u saxnaa oo aan alxuja bilxuja kaga hortagnaa oo aan diinta caddayna waay waa laynaga rabaa group kalena waa groupka ugu daran waa groupka dhaqaalaha bixiya kaan rabo meesha musiibadu ka jirta meeshaas waay sidaa darteed qof kasta oo shabaab xoolo u wada ama u taga waa hadaf ka mid ah dawladda hadafku u yahay maxaa jira dawladdu waxay mas-uul ka tahay dhiigga shacabka Soomaaliyeed inay ilaaliso dhiig mar hadday timaadana ama diin timaadana waxyaabihii ilaahay uu ina faray in la ilaaliyo oo ah كليات الخمسة اللي بيجري عقلية دينته أيوه الرئيس نفط مسلم مالك عرضيس أنت بشباب عدو يكونين أنت نك عدو عنك حول أصي وضع دولة مسؤولية ده يعني الدين حال إلهي والصاري وحكم ده ضدك إلى إلالسه أنت أو إلالسه كوا حوله وجينا جاي أنت سوير كوي أيجي الشباب كوا اسكم مت اسمع دعوة وين وجادو بقلال كالصوماليات اللي يقول لا يقرحيدا مالك لو سو غداي وا كاغي دنبيلا تاي ميشا قيامه قلنا هذه وحي هذا كدنبيانا دulqaadkaas waa dhamaaday marka dadku waa inay walaalaha iyagoo sharaf leh waa inaysan xoolahooda cadaab ku gadanin dawladana waajib ay ku tahay dadka inay u ilaaliso naftooda iyo maalkooda iyo diintooda iyo cirdigooda iyo aqligooda inay ilaaliso cid alla cidii ku soo duusha intaasna tabari meel kasto ay tabari taalo shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed oo isku duuban way iska celinayaan